waxaa wax la yaab laha ninka maanta leh fatwadii sheekh umal ayaa carruurtii ku agowooday waa muqdisho joogta oo raba muxaadara in loo jeediyo taariikhdii laga been sheego. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabteeda sharafta la soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada niyo saafiic. waxaa laga marmaamaan oo la iloobin karin waa inaad channelka dad ku cusubtaa subscribe dhahdaa, like dhahdaa, share dhahdaa, commentiga asxaabtaada kale inaad usii share garayso. commentiga waa ii dhiirigelin, fikradihiina quruxda badan leh. commentiga kusoo dhiibta insha allah hadduu ilaah ka raali noqdo. soo dhawaada. waad aragteen sheekheena sharafta lahaa sheekh umar oo saa'iday boqolkiiba 99 laga qaldan yahay, qalad weyn laga galay. qaladkaasoo micnaha wuxuu dhahayay, waad aragteen sida uu ka dhawaajinayay. wuxuu dhahayay aniga uma imaanin in aan micnaha wadankii muxaadara aan ku qabto, waxaan u imaaday in aan masaakiintii dhibaatada gaartay beledweyne weli kusoo fatahay aan lacag kusoo aruuriya u keenay inaan ugu miciino. markaan muqdisho imaado anigoo bixi rabo baa waxaa layga codsaduu yiri in aan maalinta jimcaha muxaadaro khudbada ka akhriyo masaajidka isbahaysiga, dabadeedna aan layga sii codsan. waxaa wax la yaab laha ninka maanta leh fatwadii sheekh umal ayaa carruurtii ku agowooday waa muqdisho joogta oo raba muxaadara in loo jeediyo taariikhdii laga been sheego sax maaha. intaa waa mawaaqif wada caam oo markhaati lahoo la wada joogay wey. haddii aan ummad soomaaliyeed dhiiggeeda daadinayo ama xalaalaynayo markay dhibaatadu gaadho uma soo gurmadeen, haddaan qabo in la daadiyana xoolo uma soo ururiyeen. dareen diineed weeye, mas-uuliyad weeye, culimmadu ay qabto waajib diiniya waay. intaa waxaan idin taariikhdaasi wakhtiga idinkaga lumiyey calashaan inaad ogaataan xaqiiqada inaad ogaataan. ummad badanoo been lagu lugooyo waxaan jirin loo sheegayna inay waxa jira ay ogaato. intaas weeye. aad baad u mahadsan tihiin. kelimada aan doonayo intaa kadib intaa yartee taariikhda inaan idin iyo sidaas layga codsado darteed baa haddana dhibaato dhacday. dhibkaasoo in la joojiyo ama la diido. wuxuuna ku micnaha ku adkaystay, dowladdu ku adkaysatay in la qabto. asigana wuxuu dhahay laguma adkaysanaa intii hal qof oo ka mid ah dhibaato loo geysan lahay aniga diyaar uma ihi. maasha allah tabaaraka allah. ila sii daawadaba hadduu ilaahay ka raali noqdo. waa erey aad iyo aad u macaan. ujeedadeyduna ma aha inaan muxaadaro dhigaba markaan meesha imaanay, laakiin bulshada qaar ka mid ay culimmada iga codsaday dhowr beli nala joog, khudbada jumcadana noo jeedi, muxuu ahaay muxaadaraadna magaalada ka jeedi. waan baaqday anigoo magaalada nairobi hawlo badan kule baan saa u baaqday. hadday mushkila abuurantayna go-aan waxaan qaataya intii hataa iska dhaaf dhiig ku daatee ruux soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku geli lahaa sababtay ayada dhan hala kansalo, ayadoo weliba dowladdu ku madax adag tahay. anaadi maasha allah. waa ila daawateen khudbada qiimaha iyo khayrada leh oo quruxda badan oo ka soo jeediyey, iyo in uunan dacwo iyo dood uun ka qabin joojinta la joojiyey muxaadarada. maasha allah tabaaraka allah. ilaahay khayr ha siiyo. jazaaka allahu khayran. aad iyo aad boqolkiiba 99 xaqiiqatan waa laga qaldan yahay, laakiin dhib ma laha. adduunyada waxaa la haddaan la kala roonaanin roob muddo in la kala roonaado way qurux badan tahay oo qofka kale ka roonaado. maanta wuxuu u imaaday inuu ummadda dhibaataysneed saacideeyo oo u miciino oo wax ku tabaruco inta tabartiisa ah. maasha allah tabaaraka allah. intana ilaahay wuu u suurtageliyey oo ku tabarucay. tabarucaada waxay noqotaba maasha allah lacagaan cadad lahayn buu keenay oo u geeyay masaakiinta dhibaataysneed. intaas markuu ku caawiyey bacdeen dalabaadka laga dhiibtana haddii dowladda ay ku adkaysato oo dhib badan dhici lahaay. maasha allah tabaaraka allah. aad iyo aad walaa sheekh khayr allah siiyo. aad iyo aad uga roonaado. waa fikrad fiican in la kala roonaadana way wanaagsan tahay. haddaan la kala roonaanin roob muddo oo khayrna ma imaanayo boqolkiiba 100. adduunyada ilaahay la kala roonaashada way sharaf badan tahay, wayna qiimo badan tahay maanta. waayo maanta doo dhihi lahaa haye dad badan baa ku dhibaatoo lahayd, dad badan baa ku xilaa nafka bixi lahayd, waa la isku dilin lahaa. laakiin uma suuragelin wuu joojiyey. ujeedadeyduna ma aha inaan muxaadaro dhigaba markaan meesha imaanay, laakiin bulshada qaar ka mid ay culimmada iga codsaday dhowr beli nala joog, khudbada jumcadana noo jeedi,
muxuu ahaay muxaadaraadna magaalada ka jeeday waan baaqday anigoo magaalada nairobi hawlo badan kule baan saa u baaqday hadday mushkila abuurantayna go-aan waxaan qaataya intii hataa iska dhaaf dhiig ku daatee ruux soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku geli lahaa sababtay ah ayada dhan hala kansalo ayadoo weliba dawladdu ku madax adag tahay anaa diiday oo ku idhi maya ma dhacayso xataa madaxweynahaya waxaan ku qanciyey qiso waxaan u keenay cuhmaan ibnu cafaan khaliifatu rasuulillahi sal alla alay wasalam ayaa waxaa loogu yimid duulaan niman kacdoon ah duulaan ugu yimid xafiiskiisiibay isku wareejiyeen inay dilaan bay rabeen saxaabadii nebiga sal alla alay slam la joogay baa damcay inay difaacaan oo dagaalamaan oo khaliifka muslimiinta difaacaan cuhmaan wuxuu ku yidhi ruux muslima intii sababtayda dhiig ugu daadan lahaa u banneeya faraha ka qaada ha dagaalamina way ka baxeen saxaabadii nimankii way u soo galeen cuhmaan isagoo qur-aan akhrinayay ku dileen qisadaasaan xataa u sheegay dowladdoon ku idhi maadaama khaliifkii muslimiintu dhiiggiisii in la dilo u oggolaaday calashaani muslimiintu ha badbaadeen muxaadaro laga maarmi karo inay muslimiinta dhib u soo gaadho sax maaha sidaasaan marka ku baajinnay sidaas daraaddeed wadaadka iyo wixii la fikrada iyagana waxba uma qabo soomaaliya oo dhanna waa saamax dad fara badan oo la lugooyey oo aflagaada iyo wax badan sameeyeyna ayaguna waa cafi idinkuna waad mahadsantihiin haddii uun munaasabadii timaado oo laysu yimaadana masaa'il wixii ah culimmada dhex yaalla in laga wada hadlay ku fiicanta wixii laysla afgaran waayana nin walba uu tiisa si nabadgelyo ah ku wato wixii laysla afgartana si walaalnimo loogu wada socdo isaguna waa cafi intii gafgashayna waa cafi dhammaanteenna allahina wada cafiyo sida uu sheekha sharafta ee qiimaha iyo qadarinta umudan uu uga hadlay barnaamijka meesha yaalo iyo wixii jira walaa aad iyo aad maasha allah barakee dad badan oo dhibaato soo gaari lahaa buu badbaadshay siduu badbaadshay ilaahay sharta iyo wax walbaba allaha uga xijaabo waayo maanta hadduu ummadiisa badbaadshay wax badan uu badbaadiyey waayo wuxuu dhahay inay dad anigi madaxayga oo dhib ku soo gaaro diyaar uma ihiyo dhahay waa sax waayo dadka ayaga dadka u turi waaye bal ka waran maxay noqonaysaa dad ayaga dadka u turi waaye maxay ahayd ku dhaqmaayaan in ay dad dhibaatayaan dad dhibaato u geystaan maanta hadday dad dhibaato u geystaan waa ayaga culummo isku sheegaaye dad ay dhibaato u geysan rabaanbe maxay sameyn rabaan maanta hadday dad dhibaato u geystaan maxayse ka hadli doonaan waa dadaa dhiigooda daadis maxaa ku dagaalamaysaa diin hay dad islaanaana dhib u geysatay soo dhibaato ma aha waa dhib aad iyo aad u weyn marka ilaahay waxaa waa qof walba aqligeeda iyo aqoonteeda ilaahay u siyaadiyo qolkiiba shaqaashan insha Allah waxay qurux badan tahay in la kala roonaado haddaan la kala roonaana roob ma dhico in la kala roonaado wax ka qurux badan ma jirto sheekh umar wuu ka roonaaday sheekhyada kale oo suufida ah oo wuxuu uga roonaaday maanta haddii madaxiisa dad ay wax u gaaraan balka wara dowladda ka codsatay in uu isbahaysiga uu muxaadara khudbo ka jeejiyo maalintii galabtii casirkina oo istaadiyo koonis ejkiisa injineeriyihiisa oo kusoo jeediyo muxaadaro aad iyo dadweyne isugu imaadaan asigoo taas niyeysta oo raba inuu ku qabto baahadane banaanbax iyo dad maangaabiyaal ahoo laisku soo aruuriyey banaanbax iyo buuq keeneen marka aad iyo aad ku mahadsan yahay sheekheena sharafta la sheekh umu maasha allah waan taageeraa allah barakeeyo sida oo go-aanka uu qaatana waa ugu farxay waa ugu mahad celinayaa waayo ummad soomaali buu badbaadshay isna ilaahay badbaadiyey sida uu badbaadiyey maasha allah inuu badbaadshay waa ilaahay uga baryeynaa jazaaka allah khayr waan ku sugi doonaa insha allah waa ku yiri carana kuma bixin waan soo laaban doonaa insha allah waan ku sugaynaa waqti allaala waqtigaa noo soo laabato inaa mar dhow noo soo laabataan rajeynaynaa dadkan oo qulubtooda dhimatay ha u qaban waxba ha u qabanin marka maasha allah tabaaraka qof qulubteeda waxaan ku jirana dhib ma lahan qulubtaada wax fiican ku jiro baa uga roonaatay baadna ku tiri aniga wixii hore waan ka soo maqlay aad iyo aad u mahadsantaa sheekheena qiimaha iyo qadarinta dhanka mudan kor allah kaa dhigan ku dhigeen asxaabteeda qaaliga channelkeyga dad ku caajista ka raaleen qadaad ka heshay subscribe asxaabtaada kale u sii share garay commentigana waa ii dhiirigelin commentigiina quruxda badan la dhiirigelinta oo
hore u soco maxay ahayd horumar wacan haddaad igu caysiin haddaad igu ammaantiin dhiirigelin bay ii tahay inta inacab inta ijecel dhammaantiinaba waa idin wada jeclahay waxaa idinkaaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi